بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta taariikhdu waa bisha bishii shanaad 2022 waxaan joognaa degmada Afgooye si gaar ah waxaan u joognaa kuleejada agoonta dhalinta Kiskacaan ayaan joognaa waxaan u nimid xogaha sadaqa ah oo hay'adda Haaro iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo qoyga Ameerika ay ugu tala galeen inay ku caawiyaan agoontan halkan ku xareysan ayaan soo gaarsiinay insha Allah saad maqlayseen gabadha meesha Faadimo Maxamed Jimcaale ayaan ku wareejinay iyo tiimkeeda xaradan maamula meeshan agoon aad u tiro badan ku xareysan 280 canuga ku xareysan oo hadda mas'uuliyad gaar ah oo saaran oo ama hay'ada ama dawlad caawisan aysan jirin waxaan codsanaynaa oo sida ay maamulka codsadeen annagana codsiga ku celinaynaa in agoontan la caawiyo kuleejada waa kuleejo caana waa kuleejadii dhalinta Afgooye dad badan oo mas'uuliyiin oo maanta ama wadanka maamulo ayaa ka soo baxay marka aad baan u codsanaynaa kuleejadan taariikh gooni ah leedahay in taariikhda lagu tixgeliyo la caawiyo dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adana waxaan u sheegaynaa amaanadii iyo wixii aad ugu tala gasheen agoontaas saad u jeedaan waxaan ku wareejinay maamulka waana mahadsantihiin waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayr sadaqada aad la baxdeen ilaahay wixii khayraad ku dalbaysan Allah idinku siiyo wixii sorood ka baqaysan Allah idinkaga celiyo Allah idinku xifdiyo idinka awlaadiina sadaqadaasna meel munaasab ah oo agoon ah iyo waqti munaasab ah oo sadaqada ay munaasab tahay oo bil Ramadaan ah ayaan maartay ayaad bixiseen waxaan leenahay Allah idinku xifdiyo Allahna idin barakeeyo aad baan u mahadsantihiin waan u jeedaan agoonta iyo cadadka ay leeyihiin iyo baahidana iyo aad u badan tahay iyo inaan isdaboolin wax meesha yaallo barakallahu fiikum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد قلبت waxay noo tahay runtii farxad weyn farxadaas oo kulmisa laba ujeedo awalan ramadaankii noo dhamaaday oo bari iid ay noo tahay marka labaad ilmihii baahanaa oo galabta loo keenay raashin 15 maalmood walaalaheena Haaro oo mar walba soon kasta ama dhar uga qayb qaata ama raashin uga qayb qaato awalan waxaan ku soo dhaweynayaa dhammaan mas'uuliyiintan joogta iyo kuwa ka sareeyaba xarunta agoonta ee Kiskacaan Afgooye ku soo dhawaadaan leeyahay Haaro waa mataanowne eragaas hal iga qoro Haaro waa mataanowne sababtoo ah Haaro dalabkan u dirsano markay xaaladda nagu xuntahay waa noo soo jawaabtaa ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo dadkii soo dhiibay iyo dadkii u adeegayba intaas kadib mas'uuliyiinta ugu sareysa ee Haaro baan waxaan u jeesanaynaa codsi maadaama aan mataana noqonay arkeen walaalkeen muxuu ahaa Sheekh Cabdiqaadir iyo walaalaha la socda xarunta oo ah qadiimi oo ilaa waagi burburkii iyo wadamada adduunka soo jiri jiray ee sanahayn xarun hadda la iska waxeeyay tusaale gabdhaha walaalaha ay u jeedaan kuleejkaana ka bixin ilmaha maanta wax siinaysan la mid yihiin ayagaana maanta wax u karinaayo waxaan codsanaynaa mas'uuliyiinta Haaro inaysan meel cidna noogu tagin bil walba ha yaraato ha badnaato ilmahaas in maaragtay meel noo saaraan intii laga helayo dad mas'uuliyiin oo kafaalo qaada oo wax siiya bishii walaalkeen Cabdiqaadir aan telefonkiisa haystaa habeeneed waxaan ilmihi waa baahan waxba ma hayaan cid kale u soo gurmatay lama arko codsigii waa ka jawaabtay Haaro waan u mahad celinayaa ilaahay ajri xasanaad kuwii soo aruuriyay kuwii loo soo dhiibay ilaa hadda ay taagan tahay soo gudbinteedii waxaan leeyahay ajri xasanaad Allah ka siiyo waa mahadsan yihiin Sheekh Cabdiqaadir iyo dadka wafuudda kula socoto ma haddaas ballaaran naga gaarsii kugu soo dhaweynayaa xaruntaadii ay noqoto markan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh